galab wanaagsan daawadayaal haddii aad Soomaaliya ku sugan tahay waxa ay ku tahay xilli galab ah haddii aad joogtid wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waqti walba ay ku tahay wanaagsan ayaan ku leenahay waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo xog iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadihii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya hubkii ugu cuslaa oo gudaha loo galiyay magaalada Saylac ee gobolka Salal ugaaska guud ee Beelweynta Ciise oo amar culus oo dagaal dul dhigay ciidanka jabhadda Beelweynta Ciise haddaba maxaa ka soconaya magaalada Saylac ee gobolka Salal waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo mawduucyada xasaasiga ah ee halkaasi ka taagan qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii abweyne laga helo waxa qayb ka noqonaya duulimaadyadii garoonka aadan cadde oo hakad la geliyay iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalka u galayo waxaan kula wadaagi doonaa waxa soo kordhay xilligan iyo dhaqdhaqaaqyada culus oo xilligan ay wado dawladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaare Khayre iyo saraakiil ciidan oo ka soo jeeda Beelweynta Mursade oo hadda kulan degdeg ah ku leh degmada Dayniile ee gobolka Banaadir maxaa looga wada hadlayaa maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Khayre xilligan uu diyaarinayo abaabul ciidan oo aad u xoog badan waxaan ku soo gudbin doonaa macluumaad iyo xog xasaasi ah oo arintaasi la xiriira qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii abweyne laga helo waxa qayb ka noqonaya dagaal u dhaxeeya kooxda shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar kale dib uga qarxay deegaanka Nuurdugle oo saacadihii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka isku dhinaca iyo maleeshiyaadka kooxda shabaab ay ku wada dagaalamayeen waxaan kula wadaagi doonaa duqeymaha dhacay saacadihii la soo dhaafay horjoogayaasha lagu dilay iyo dagaalka oo wali soconaya qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinino waa hagaag mar kale saaxiibayaal soo dhawaada ayaan idin leenahay qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa wargelin muhiima ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cimreeyo bisha Rajab oo ka mid ah bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga soo cimreynaya waalidkaaga waxaana fursadan kaaga faa'iideynaysaa shirkadda Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran waxa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer nagala soo xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda shirkadda xajka iyo cimrada ee Taqwa Xaj and Cumra ku dooro alla ka cabsi ammaano iyo adeeg hufan hubkii ugu badnaa oo ka yimid dhinaca dalka Djibouti ayaa gudaha u galay magaalada Saylac ee gobolka Salal iyadoo dhaqdhaqaaqyo culusna magaaladaasi ay ka bilaabeen ciidanka jabhadda Beelweynta Ciise ee uu hogaaminayo ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo ah ugaaska guud ee Beelweynta Ciise ee xilligan ku dhawaaqay amarka culus iyo dagaalka ka dhanka ah ciidanka Somaliland ee ku sugan magaalada Saylac daqiiqada ka dambaysa waxa cabsi xooggan laga qabaa in uu ka qarxo dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka maamulka ee Somaliland iyo sidoo kale ciidanka jabhadda Beelweynta Ciise ee halkaasi ku sugan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo abad aysan hore u arag dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada ayaa xilligan soconaya waxaana guud ahaanba magaalada lagu arkayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ay wadaan ciidanka jabhadda Beelweynta Ciise afarta jiho ee laga soo gala magaalada waxa isku hareereeyay ciidamo aad u fara badan oo wata hubka noocyadiisa kala duwan qoryaha darandooriga u dhaca madaafiicda goobta qoriga la yiraahdo artilleriga iyo sidoo kale adifayfka iyo jantajinguha iyo waxyaabaha la midka ah ee loogu talagalay in sida weyn ay wax u gumaadaan ciidankan waxa la sheegay in ay aad u hubaysay dawladda Djibouti taasi oo xilligan garab istaagaysa ciidanka Beelweynta Ciise ee ku sugan qaybo badan oo kamid ah gobolka Salal meelihii ugu muhiimsanaa gobolkaasi waxa laga saaray ciidanka maamulka Somaliland iyadoo xilligan ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan militariga Somalilandna ay isku urursanayaan duleedka deegaanka lagu magacaabo Saylac oo ka tirsan gobolka Salal waxaana xaaladdu ay u muuqanaysaa xilligan mid sii kordhaysa marba marka ka dambaysa dhaqdhaqaaqyada culus marka loo eego saraakiil ka tirsan ciidanka jabhadda Beelweynta Ciise oo kulan xasaasi ah la qaatay ugaaska guud ee Beelweynta Ciise ayaa amar ku bixiyay in xilligan dhaqdhaqaaqyada la kordhiyo iyadoo xilligan laga cabsi qabo in uu ka qarxo magaalada Saylac dagaalkii ugu cuslaa sidoo kalena lagu barataarayo dhinaca buugga xeer Ciise oo la doonayo in lagu soo bandhigo magaalada Saylac ee gobolka Salal magaaladu waxay wajahaysaa xaalad dagaal
dhaqdhaqaaqyadu waa ay sii kordhayaan waxaana ciidanka jabhadda beelweynta ciise marba marka ka dambaysa ay helayaan hubkii ugu cuslaa waxaana la fulinayaa dhaqdhaqaaqyo aad u culus ugaaska guud ee beelweynta ciise waxa uu sheegay bishan dhammaadkeeda in ay qaban doonaan bandhiga buugga xeer ciise muhiimna ay tahay in magaalada saylac lagu qabto arrintaasi oo sababi karta in xaaladda ay uga sii darto somalilanna waxaa isku diyaarinaysaa dagaal culus oo xilligan ay la geli karto ciidanka jabhadaha ah maadaama uu cabsi xoogan ka muujinayo cabdiraxmaan ciro in uu lumiyo galbeedka somalilan oo xilligan ay ka qarxeen dagaaladii ugu cuslaa gobolka salal iyo sidoo kale gobolka owdal labadaasi gobol waxa ay noqdeen kuwa xilligan laga barataarayo dagaalka ka dhanka ah ciidanka militariga somalilan inkastoo beelweynta ee gadabuursi kulamo kala duwan ay la qaateen maamulka cabdiraxmaan ciro sidoo kalena lagu ballamay in hal meel looga soo wada jeesto dagaalka ka dhanka ah beelweynta ciise oo la doonayo in gebi ahaanba laga barakiciyo magaalada saylac iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka salal ayaa haddana waxaa muuqanaysaa in xilligan dhaqdhaqaaqyadu ay sii kordhayaan sidoo kalena jabhadaha hubaysan ee ka dilaacaya deegaanada iyo degmooyinka gobolka salal ay noqonayaan kuwo markaasi xargo goostay xilligan xaaladdu waxay u muuqataa in ay sii adkaanayso dhaqdhaqaaqyaduna ay sii cuslaanayaan waxaana laga cabsi qabi karaa in mar walba dagaal uu qarxo ugaasku waxa uu sheegay in uu amar ku bixiyey ciidamada in ay dagaalamaan sidoo kalena ciidanka maamulka somalilan gebi ahaanba laga saaro magaalada saylac oo goobo fara ku tiris ah ay ka joogaan dhammaan saldhigyadii magaalada waxaa la wareegay ciidanka beelweynta ciise kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo culus wada iyadoo sheegeenna ama ay sheegeen in ay muhiim tahay in ay soo bandhigaan bandhiga buugga xeer ciise ee la doonayo in magaalada saylac lagu soo bandhigo haddaba dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya iyo hubka culus ee gudaha loo geliyey magaalada saylac oo ciidanka ee markaasi jabhadda beelweynta ciise xilligan ay gacanta ku dhigeen waxaan kugula wadaagi doonaa wixii ku soo kordha wararkeena iyo warbixinadeena soo socda haddii allaha ugu dale uu raalli ka noqdo markana duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa hakad la geliyey dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay ku dhawaaqday in xaalad deg deg ah ay geli doonto magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka arrintan waxaa si weyn uga soo horjeestay xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaasi oo xilligan bilaabay dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ay ku doonayaan in ay ku sameeyaan magaalada muqdisho hub urursi iyo maleeshiyaad ay doonayaan inay ugala hortagaan dowladda federaalka soomaaliya dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan ay ka wada magaalada caasimadda muqdisho garoonkii diyaaradaha aadan cadde maalinimada khamiista ah ma jiri doonto wax diyaarad ah oo ka soo degi doonta iyo sidoo kale mid ka kacaysa intaba sidoo kale waxaa la hakin doonaa dhaqdhaqaaqyadii magaalada muqdisho dadka rayidka ahna arrintaasi waxaa la sheegay in ay dhib xooggan ku mutaysan doonaan gaadiidka lama ogolaan doono in uu socdo sidoo kale dadka lugaynaya ayaa loo diidi doonaa in ay socdaan waddooyinka muqdisho 10,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa la diyaariyay kuwaasi oo loogu talagalay in ay markaasi ilaaliyaan amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo guud ahaanba in ay bando ku soo rogaan magaalada caasimadda ah Muqdisho xaalad adag ayay wajahayaan maalinimada khamiista ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan caasimadda arrintaasi oo qayladhaantii ugu xooganeyd laga muujinayo laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ay iska indhatirayso goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan waa 16 degmo oo ku yaala caasimadda kuwaasi oo si habsami leh hadda ay uga soconayso arrinta la xiriirta qaadashada kaarka iyo sidoo kale dhalinyaro la sheegay in loo carbiyay in ay markaasi qayb ka noqdaan dadka markaa ilaalinaya doorashooyinkaasi iyo sida ay u dhacayso markaasi codaynta loogu talagalay in dadku ay u codeeyaan golaha deegaanka ee xilligan la doonayo in markaasi qayb dhismeedkiisa lagu hagaajiyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xaaladdu waa ay adkaan doontaa maalinimada khamiista ah lama oga waxa dhici doona laakiin xilligan dawladdu waxa ay u sii sheegaysaa dadka shacabka ah in ay guryahooda ku nagaadaan garoonka diyaaradaha wax shaqo ah aysan ka dhici karin sidoo kale ganacsiyadu ay xirnaan doonaan waxa lagu qiyaasay sida ay tilmaameen dadka odorosa arrimaha dhaqaalaha in maalinkaasi uu markaa dhaqaale badan hoos u dhici doono sidoo kalena ganacsatada Soomaaliyeed ay ka lumi doonaan dhaqaale aad u fara badan maadaama xilligan hoos u dhac maaliyadeed laga dareemayo guud ahaan dalka maalinkaasina ay noqon doonto maalin ganacsatada ay soo wajihi doonto khasaare xoog leh oo ku aadan dhinaca dhaqaalaha maadaama maalinkaasi aysan jiri doonin wax shaqo ah iyo dhaqdhaqaaq markaasi laga fulinayo magaalada caasimadda ah Muqdisho taasi oo culays u keeni doonta dad badan oo ku dhaqan caasimadda haddaba
wixii ku soo kordha oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii allaha ugu dalo uu raalli ka noqdo sidee baad u aragtaa in la hakiyo dhaqdhaqaaqyadii garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii magaalada caasimadda ah ee muqdisho ee markaasi dhinaca isku socodka gaadiidka iyo dadka wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii eebaweyne uu idmo laakiin aragtidaada nagula wadaag qaybaha hoose commentiga markana ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo saraakiil ciidan ayaa la sheegay in hadda kulan degdeg ah uu uga soconayo degmada Dayniile ee gobolka Banaadir halkaasi oo laga barataarayo ololaha la doonayo in markaasi lagu soo bandhigo ciidanka loogu talagalay in ay ka hortagaan dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud beelweynta Mursade waxa ay qaadayaan xilligan talaabooyinkii ugu cuslaa xasan cali khayre ayaa cashir xoogan ka bartay kadib markii magaalada muqdisho banaanbax markaa uu kala qayb galayay xubnaha mucaaradka xilligii dawladdii madaxweyne farmaajo ay jirtay markaasi xabad lagu kala ceyriyay banaanbaxyadii isaga uu ka mid ahaa taasi oo keentay xilligan in xasan cali khayre uu qayb ka noqdo abaabulka dhinaca ciidanka ah ee la doonayo in looga hortago dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidanka ee xilligan ku sugan ee goobta uu ka dhacayo kulanka degdega ah waxa la sheegay in uu ka mid yahay Geylac ninka lagu magacaabo oo qayb ka ahaa xubnihii badbaado qaran ee ciidanka ee faraha badan markaasi duldhigay aaga madaxtooyada oo ka arriminayay madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo abaabul xoogan ayaa soconaya sidoo kale waxa la sheegay in ay qayb ka yihiin odayaal dhaqan oo markaasi uu qayb ka yahay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ninka lagu magacaabo nabadoon maxamed xasan xaad kaasi oo la sheegay in uu qayb ka yahay ragga xilligan abaabulaya ciidanka la doonayo in looga hortago dawladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud Dayniile waxaa ka soconaya markaasi abaabul dhinaca ciidanka ah oo beelweynta Mursade xilligan ay markaasi abaabulayaan sidoo kale siyaasiyiinta caanka ah ee markaasi beelweynta Mursade ka soo jeeda ee kulankan degdega ah qaybta ka ah waxaa qayb ka ah xildhibaanada lagu magacaabo Faa'iise Jeyte oo kamid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina qayb ka ah xildhibaanada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud degmada Dayniile duleedkeeda waxaa lagu soo bandhigay dhawaan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan markaasi beelweynta Mursade waxaana la sheegay in hadda ciidamadaasi la horgeyn doono Xasan Cali Khayre iyo ragga siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda beelweynta Mursade kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo xoogan xilligan fulinaya Khayre ayaa waxa uu kulanka ka dhax sheegay sida la tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya loo baahan yahay in beeshu diyaar garowga ugu xooganaa ay muujiso si loo soo bandhigo awoodooda iyo sidoo kale cududooda dhinaca ciidanka xaaladdu waxay u muuqanaysaa mid markan ka sii daraysa marba marka ka dambaysa iyadoo xubnaha siyaasiyiinta ah ee ka soo horjeeda dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna xilligan ay galayaan diyaar garowgii ugu xooganaa oo markaasi ay ku doonayaan in ay uga hortagaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddaxileedkeedu uu ku eg yahay marka la gaaro 15 May 2026 oo diyaar garowgii ugu xooganaa hadda loo sii galayo dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay in qudheeda ay diyaarisay ciidamo aad u fara badan oo loogu galay in ay ka hortagaan ciidamada ay diyaarinayaan xilligan mucaaradka kuwaasi oo la doonayo in magaalada muqdisho lagu xakameeyo xaalku mar walba ayuu isbedeli karaa waxaana muuqanaya dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii allaha ugu dalo uu raalli ka noqdo laakiin sidee u aragtaa in xilligan xasan cali khayre iyo ragga la midka ah ay bilaabeen abaabul ciidan oo ay ku doonayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay uga hortagaan ugu dambeyntiina dagaal culus oo u dhaxeeya kooxda shabaab iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dib uga qarxay deegaanka lagu magacaabo Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wararka ka imaanaya deegaankaasi waxa uu sheegayaa in saacadihii la soo dhaafay dagaalo culus ay ka dhacayeen kadib markii halka isku farasaareen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka isku dhinacaya maleeshiyaadka kooxda shabaab kooxda shabaab ayay u suurto gashay in ay deegaankaasi la wareegaan laakiin saacadii la soo dhaafay diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo culus waxa ay ku garaaceen goobaha bartilmaameedka ah oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda shabaab waxaana la sheegay in duqeyntaasi lagu dilay horjoogayaal muhiim ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda shabaab isla markaana lagu beegsaday goob markaasi shir uga soconayay oo ku taala deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi ayay maleeshiyaadku gacanta ku dhigeen oo
hadda dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ay ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe waxay ka mid noqonaysaa degmada nuurdugle deegaanadii ugu dambeeyey oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay iskaga soo baxaan kadibna ay la wareegaan maleeshiyaadka kooxda shabaab xaaladda gobolka shabeellaha dhexe xilligan waxay u muuqanaysaa mid markaasi maleeshiyaadka kooxda shabaab ay qabanayaan deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi iyadoo ciidanka xoogga dalkana xilligan ay barataarayaan amniga deegaanadaasi sidoo kalena ay guluf colaadeed ku qaadayaan maleeshiyaadka kooxda shabaab xaaladda gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi waxaa hadda gacanta ku haya kooxda shabaab waxaana iskaga baxay ciidankii dowladda federaalka soomaaliya iyadoo abaabulkii ugu xoogganaa oo dhinaca dagaalka ahna xilligan uu ka muuqanayo deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe nuurdugle waxay ka mid tahay deegaanadii muhiimka ahaa ee استراتيجية أها جعنت أوجلي مليشيات كوحدة شباب ولي بقوة وجود دنبي وحكوسو كردو ورر كني وربحنا دينا صو صعدة أجت كدا وندونتان هديات نقول عصوب تهاي وحنقولنا نقول صبير لايك صار مقال كان سبسكرايب لبوجن سيادو جم من نقطة صاحب بدو جوكتة هل كانوا جهلا ورر وربحنا دا يا معلومات كمر والبان هل كان يدكوا جسوا جود بيننا وإذا ما سنتين دا وذيال سودو هذا